إلهي مهد سبحانه وتعالى إلهي قال سبحانه وتعالى مسلم كأنه قال يا مهد له إلهي رحمتي نسيه إن ورابيا مهد له إلهي نبت قليل نسيه مهد له waxaan jeclay maanta waxaan idinku yeelay waxa weeye hambaliyadii 18 May waxaan hambaliyeenaa shacbiga reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda waxaan si gaar ah u hambaliyeenayaa ciidamada qaranka ee difaaca dalka iyo ciidamada nabadgelyada in ku seexano ayaan iyagana aan hambaliyo gaar u diray oo leeyahay geesiyaal laatihiin nin lagu seexdo ha seexan ayaan leenahay abaalkiina way heli doontaan insha Allah taala walaalayaal waxaan ii sheegayaa ilaahay mahadi weeye in ilaahay 18 May gaarsiiyay sanadkii 18 May waxa weeye maalintii aynu soo ceshanay qaranimadeena 26 June hadda dad badan ilaa hal ciseeyo way saqiirtay waxaynu qaadanay calan laakiin waxaan galnay inagoo markaa aheen ka qaadanay protectorate alayna guumaysan ayaynu guumaysi madow galay waxa suuq iyo baraka inagu dhaliyay xabaalihiisa ilaa hadda dambiyadii xidda Mareykanka lagu qaaday sharafta aan soo celiyay 18 waa sharaf aan wada leenahay reer qori male adduunka way dhacdaa nidaamyada dawladdu way isbedelaan dawlad 69 dawladdii dimuqraadiyadda ahayd ee la soo doortay maxamed xaaji caa'iga prime minister-ka system kan la haysanay barigaasna waxa executive wuxuu ahaa prime minister-ka madaxweynuhu wuxuu ahaa symbol of country unity buu ahaa laakiin executive wuxuu ahaa nin ka soo jeeda Soomaaliland buu ahaa siyaad baraya koox u abuurtay ayaa systemkii inqilaabay system inqilaabkiisa mid loo dhan yahay muuhayn maxamed siyaad baraya koox soo urursa sameeyay 22 sanadood been u dabaaldegin oo waliba loo heesi oo dhibaato keenay taa maanta Soomaaliya ku heshiin la tahay isku aamin la tahay ee Soomaaliya midnimadeed burburiye tahay marka nidaamyada waa la isbedelaa wad ogtiin Ethiopian chairkeena Tigray wad ogtiin waa qoomiyada yar baa weey Tigray baa dawladii weyneed bedelay oo ilaa maanta nidaamka dhiseen lagu sameeyo waa caado in markuu nidaam isbedeliyo kooxna diido nidaamka oo bedeliya kooxna ka soo horjeesato kooxda ka soo horjeedta kooxda kolba heesha guusha ayaa nidaamkeeda lagu socdaa wax la isla baraya ma qofka aan nidaamka ku saxayaan wuu iska taga in masaam xamxaaro jahaajirtay markii la riday xilli salaasi imisa Iiraaniyan shareesha haajirtay wuu haajiri karaa laakiin ummaddu waxay samaysatay ee xaqeedii soo celisay maaha in la aflagaadiyo in la dafiro maaha taariikh waxaana sababta leh dadkii u dhintay ee u halgamay ee la barakiciyay ayaan iyagu gabanayaan sida iyagiyo dambi ay galeen kuwii magaalada ay gacantiisa iyo shisheeya ee nidaamka Ruusiya eriyada iyo kuwii xoreeyay u soo celiyay balwarka maanta isku eega laascaano soo eegtay maanta say ahaan jirtay marka waxa weeye Soomaaliland waa loo wada leeyahay waa sharaftayni aan soo ceshanay dawladnimadeeni maantana waa loo wada leeyahay laakiin waxa taagan tahay cadaalad ma jirta cadaalad qofka cadaalad xumeeya isaga iska tagi laakiin waxa weeye qof maamul wuxuu xumeeyeen ummadan la caayo oo ummadan noo sameeyo oo beel dhaxa lagu waasho beel dhaxa waa taysaysata waa taqaadka isku qabanaysa waa taqaajibada samaysteen in la joojiyo way qabyaalada waxaan leenahay kiiska dikool dambi weyn buu galay dambigiisa laga galay ee historian laga galay qodobka 49 dastuurkiina looma marin laakiin waxa ka weyn ku isagoo ka galay ummadda ayaa ka weyn guriga ka soo horjeeda waxa ku jira caruurtii ninka oran jiray dhuubane baa mashruuha gaana inta soo qabtay buu yiri SNM tul cagsiya fagaaru ku toogtay caruurtiisa iyo wixii soo horjeedan gurigiisa wala maamusay waxa laga dhigay MB aan xaq u lahayn wuxuu ka dhistay daaro ka dhistay Uganda wuxuu ku leeyahay 3 kaas jeeshin buu ku leeyahay aflagaadadiisa iyo ceebtiisu maanta qodamahay
intaasoo jeer bay la soo ashkatiyey anigu man international ma soo ashkatiyey oo riyaalaan u sheegay oo riyaal waan ogahay laakiin dana kaan ku leen la saanadu sheegay ma teekaro walaalkii baa lagu dilay daana isagu leeyahay waxa weey markaa dakool dambigiisa lagu dhaafi maayo laakiin waxaan leenahay nidaamka loo maro waxa weeye markuu qofku faraa ku jiray dambi waxa la weydiisanayaa ogolaashaha golaha wakiilada haddii aanu golaha wakiilu fasax ku jiro golaha joogtada guddiga joogtada hala wareysiyo maalinta dhaweyto dawladda si degdeg bay u qabatay kuwii waxay ku soo jawaabeen si degdeg u soo jawaabeen ha isku tageen gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo xeer ilaalintu sharcigii hala maro stoorka la ilaaliyo laakiin isagu waa dambiile ninka la dambiile ma laha noo soo baxo waxa weeye maanta siyaasiyiin baa jirta doodiya Somaliland waxa dhabtay ummadda dhabatay Somaliland dawladda dhabatay waxay ka soo saartay meel baaba hoog ash bay ka soo saartay Somaliland nidaam bay samaysay gaceey ku samaysay way u qadeen way u gaajoodeen nabadda maanta soo geeska Afrika ugu fiican bay ku nooshay Somaliland waxa weeye qofkii wax ku darsaday ee nidaamka gacan ka geystay xaq buu u leeyahay inuu dhaliilo laakiin nin maanta yimi oo iska maqlo laga yaabo inta ay Soomaaliya dhisneed la dagaalamay maalintu yimaado inuu naxda abuuro maaha inuu dadka isku dira maaha waxa leenahay ragga meelaha ka qaylqaylinaya war hadday Soomaaliya wax ku tareed contribute gareeyeen naxday ka daayay waxa leenahay siyaasiyiinta maanta Soomaaliland joogta ee ka dhigtay meherad dadkoo la isku diro qabiil laga dhigo la kala qaybiyo gobol loo qaybiyo data madaxnimo lagu ma gaaro waxa lagu yaaraa in dawladda la saxo in ra'yi ka fiican la keeno oo ka gaara laakiin beelaha daraawiishay ka kacay lagu ma taban aadun ba xisiyeeliya qof saale kana ogolaan mayno ninka doonaya ummadda kiciyo oo isku dira ka ogolaan mayno kaanu ku haysana maamul xumaanta waxa ka xun ka dadka naxday ku abuuraya ka waxaan meelkiisa wada jeesada walaa waxaan ogahay in diidmo badan ka muuqata maamulka Musabbix horta waxa la yiraahdo xusbi wax xukmaama jiro nidaamkeena madaxweynaha weey wuxuu ku soo baxaa tigirka xusbigu ku soo baxaa magaca cudbu ku soo baxaya ka kulmiyo ka republicansa laakiin awoodda waxa leh madaxweynaha weey suluug weyn ba ka socda maanta hala kala saaro saluuga laga qabo Musabbix iyo qaran dumisnimada hala kala saaro adoo u jeeda Muuse qaranka inay dumisin maaha Muuse waxa leenahay haddaan Soomaaliya waxa ku noolaatay ku wada heshiin jirtay oo ku soo baxday talo midaysan isdhigaysi isku tanaasulkii 93 lagu sameeyay Boorame maalintii reer Boorame ilaahay qaadan mayna qaybta 6 dhaxbood dheeraad la sii oo laga jiray beelaha waaweyn waa tanaasulka iyo niyad wanaagga wax lagu dhisaa may soo marin Soomaaliland aniga tayadu ha socoto may soo marin haddana socon mayso Muuse ku socon mayso ana idhi ha socoto dhaharbaa yiri ma soconayso haddaba aynu la xisaabtan dawladda ayna joojina qaybinta iyo basxumada iyo qaran dumiska kalimada keenaya hala joojiyo Soomaaliya way burburayso afku waxa dadka baa waa la hay burburi doonto wala ay burburay aada burburaya ka waxa ku hadayo waxa burburinay bursu qaala burburi kari waay garxaajis baa burburin kari waay 94 ay diido hubka soo keenay diibaya burburin kari waay ilaahay baa subhanahu wa ta'ala Soomaaliya taagayana taagnaanaysa ragay sharayta hargeysa burburiyay isku diray ee xamirtay maanta halka inoo meereysanayo wali dabkii la meereysanayo dal waxa lagu dhistaa kow waa midnimo ummadeed national unity laba strong state teed marka dambalaya democracy dawlad dumaraadi waa dambaysan inuu dumaraadi ma horeysan marka jaahil kasta oo waxa la isku hayay garaneen oo geopolitics garaneen intuu culimad qaatay oranaya haddaan reebelnahay dalkan wuxuu u baahan yahay strong hand cadaalad u baahan yahay gacan adag oo bir ah laakiin cadaalad u baahan yahay waxa leenahay cidna ka ogolaan mayno Soomaaliland in la qaybiyo
dadka doonaya inaan debate ka sameeyaanna open debate waan sameynayna laakiin debate maaha inta laba qof meel urursadaan dad iyo dhalinyaro ah ay waxay doonaan run iyo been ku dhuraan taasi ma soconayso let's debate together aanu doodno aynu si fiican u xisaabtano yaa leenahay waxa hadda halkan taagan maanta waa dawladii hoose waa ka kusabtay madaxweyne muuse uu manaagu kordhin sidii siiraayo oo waxa uu macmalin manu kala erin ma ogolaanino waxaan u arkaa sharci darro in hayaan iyagoo haddii dambiilayahay iska tageen meesha ha ka tageen waqtigooda uu dhamaaday lama arag ummad intuu dadkii ay dooratay waqtigooda dhamaaday xitaa wax loo macmalin oo iska fadhiya lama arag warqad open letter aan soo qorina insha Allah taala talooyinka lagu kala dirayo way noo yaalaan laakiin anagu orgaan mayno meeyreedu ana caawiyeen way joogayaan tanagana ma caawin ummadana ma caawin wata dadka biyo laynaya waa wadooyinka xirmeen wata dadkana leeyahay war waxa magaalada dhisi kara waa dawladda dhisi karaya qaran dhisi karaya ay walaal dadka how can they build a nation waa kuwa magaalada urisay xumaanta dadka noo soo jeeday ma jiriyaan marka waxaan leenahay nabad ku ciida nabadgelyada ilaashada ee dhalinyarada madaxa ka xiiratayna war dalkan waa loo soo dhintay waryahan ninkii aan habbi ku heen ha ka baxo let's go baa warkaas muqdisho ku nabad ku galo bal dakoorintu muqdisho taga yiraahdo USB xaq dareen wallahi gurigiisa nabad ku gaari taqoonimada halka ma lagu arkay ilaahay ku ilaalay xaqaysa la mariyo حق الشعب كان هلا مريو ومدة إنه ماشي ككلي معلم ماذو أكتوبر ما أنا عديها 100 أرد دوتك فرماشي حجوها وتلاقي إيرية محمر لقي إيرية كبح لليه هل كما تكون بدقش يقول أنا لا سعان تكون بدقش دكار وذلك يبقى اللي قلت هو النفس يكون قبضتونا إسلام هل كافر مسكينة ده أي عشور تدا لجو سيري كوي لا تنسى مشاهد لجو سيري وتكحشون ويدي قبل كاي عروتي اللي ولاي هتلاقي وين معني مدو waxa weeye dalkan waa la wada leeyahay qofkii ra'yi keenaya oo wax wanaajinaya tafadal baan leenahay laakiin kursigii waan waayo Soomaaliya jirmayso no ka aqbalmay absolutely hebel xubka qaado inoo soo samayso wala naga shubtay meel habeetag wala hada u dhimanaya حتى سوماليا سمع وكو غرك القاضي ku yisii xume ee ka soo quusa xamar in hoos fadhiyo maanta caruurta halkan kula shirshiriyo maxaa ambaasar hotel beenta ku dhoraya shacbiga ilaashada dawladnimadiisa ilaasha muusoo iska tagay haduu ma tan wadi waadina intaan oo dhameysano ku qabanna haduu saan wadi waayo intaan oo dhameysano ka tashana laakiin dalkan duminaya oo jabadaan sameeysanaya oo garawaan ka soo duulaya oo faraasha ay soo siinaya نذهب ولي قد عميس واتكو عيويسا إفي آخر بلا الضمير حبت رولية حدثكو هايستقول أن بتقليو إلهي سبحانه وتعالى وحيري وحي لما تعادوا أدونك اللي قسو تشيري واحد نوسى هرقيس عرقا وحي أمرناتين نبت بي لما العالم ده هايستن بباور بي دوني عاركو ده اللوين عاركو ده دومر كالا قاضي ميلكو يأسن كرواي أروس بيسميسن كرواي marka xukunka laga qaatay hadaynu buwaagti isku fagfagno ina waynu saamaxnay buuxawala soo saamax laakiin hadaynu la soo baxo faylalkii walahi dib leeyahay raac tataqaaqanay agoonta waxaan ugu maslaxnaa Soomaaliland calankii baan soo xishiisay calankii baan soo celinay agoonta lagu xasadaa ya dakoolow waxa lagu maslaxaa dadka waa kan calankii baan soo xishanay يا أيام كل شيء حنا عرض أنا أنت اللي عكت وذي قاعدة تهوى مالي مذو لا أقبل معي كهذه السحاسة هذا كقاعدة ويانا توين أريدونه كان حصان ده لا يقعده شرع هذا مريض مين وسع المريض هلا تشوتشيو أفلق هذا هلا تشوتشيو بيلا لك الشيء تشوتشيو تركي بيلا ديلي هاي تشوتشيو تركي أنا قد أنت إنك كوه الله يومه وتركي لما هنا اللي ودي هالك وتركي أنا قد أنت أنا قد أنت سومالي أنا بكر أنت كم يدوم بورو مقولة كم يدوم شيل بيدودي وسراكيل في سومالنا
sharaftoodii sitay marka inuu reer sheegto maaha inuu nin ku munaasabo ku talaay intuu dhalinyaro u reeyraho ya u yiraaho walaaladeen tolkaygii la laayay waa tolkaa warkan way dhisteen adoo maxaad ku darsatay ilaahay baan ku baay maxaad ku darsatay we respect you waa lagu soo dhaweeyey waa lagu soo baxay waa lagu soo dhaweeyey wala weyn baa lagaaga hiiliyey oo 8 cod ku siisay merci kaasad maanta leedahay Soomaaliya wax kale lama laho no this must honest wala xisaabtamay let's debate si fiican aan u debate kaleen laakiin kolba dhalinyaro meel lagu xarusto صعب lagu garaaco run hamoodi inaga isku filah inaga xisaabtamay marka waxa leeyahay walaalayaan ciid wanaagsan fi hala noqdo hala noqdo magaalada sahay qofka soo booliska noqdo qofka soo military noqdo nabadgelyada jaararka islaaliya wala inagu soo duulay waxa la noo quuri way nabadaan ku noolahay nabadaan ku noolahay ee ku dhex gaajoon ee ilaahay ku bariyeen ku cibaadeysan ayaa la noo quurilay oo ni kursi doonaya islaanta idinkeedii caruurteeda jaamacad ka soo saartay hilibka gadisay inuu barakayo oo isagoo caruurtiisa meel aan ku ooyay ayaa doonaya oo kolba qaadanaya calan qabiil qabiil ma wadan buu dhisaa qabiil ma jaamacad buu sameeyaa ya qabiil ma baasoo buu bixiyaa dawladnimadan iska tuurnay waa taamaanta Djibouti oo bariisan qaayeen oo magaalo yar ahayd ad bariisan magaalada baasabor Djibouti baa bariisan maanta bilaa damiir baatini idoo dadku u horeeyay wax dawladnimo helay jijiga caruurtina u diraysan oo doon jaamacad lahayn jiray idoo damiir lahayn muqdisho hal iskuul heen baan tagnay hal iskuul professional heen shan bay lahayn shan professional schools maanta maxaa ku dhaafiyay Soomaaliya kuugu hoosisay waa dawladnimada iska dhiibtay tan maanta oo kala dhacda hebel ku xumay lagu geeyo meesha maanta dhici mayso Soomaaliya la baxay waa la yaray projectnad inay yaro inta haga tay xamar waxa la aqli si xamar maxay ku nooshay oo ku qayneen laminka USB ee dalka xoreystay ee Maxamed Salaabe ka saaray wata suuq lagu tooganayo wata xajki soo qaybiyay Soomaaliya xajki qabiil baa lagu qaybiyay konton iyo 8 waxa la sameeyay shirkadooyin jiro reera si loo baabiyo shirkadii hore jiray taa maxaa lagu qaylin waxa lagu dilay maxaa meesha la baydhaba 7 qof miskiin lagu dilay xasan sheekh wuxuu tagi karo baydhaba cabdiraxmaan shukuur wuxuu ku qabsan waa shir maxaa taa u sheegay maxaa Soomaaliya diidada loo hayaa wax xaasidnimo waxa la diiday nabadaas kaasa adduunka kolba in yaro meel soo farsay saaqilo intuu dibadii qabto waxba ka qaban kari waayay ishiin inaad arkay madaxweynaha noqday wasiir ka dhigo nuku waa in arkay haka ka soo caytay ya islaamii magaalada si caruurteeda la si allowance children allowance la si ummadkoodii ku soo diray fadixad u soo diray ay dhigeysanaysaa nabadin haysta Soomaaliya waa family waa hal family ka isku dhaqana isku afa isku accident bayna isku wada dhalay marka ayaan iska qaybin ninkii doonaya in wax wanaajiyo de wanaageen laakiin hebel dil yareer baa ku boobay ma hada wax lagu heshin karo ma iska duuduubna Soomaaliya ma xisaabtana si reer baan ku noqona sida ceelashii biyo ku dagaalana deemadaasna waa asliga guuray modern state baan dhisnay insha Allah taala waxa dawladda wanaagsan baa lagu gaaraa guriga yar guri wanaagsan baa lagu sugaa hadduu qof xun guri ka galo dawladdu qofka laga soo saara dimuqraadiyadda doorashadu hay noo dhac 26 Juun waa debate baan sameynaa shir baan qaban waxaan ka shirnaa 26 Juun maxaa dawladnimadeeni ay ugu sameeyeen power sharing hada reeraha power sharing samaha Soomaaliya maxay power sharing heli kartaa SNM 10 sano jirtay maxay institution noqon weyn sidee 20 sano dawladna way cidinimo haysan maxay u socon weyneen u sameeyeen national unity student state and rule of law sameeyeen oo dhulkeena wada gaar weyn waa su'aalahan doonay inaan ka jawaabno insha Allah taala iyo talooyin ka soo saarno marka waxaan ku dhameysannaa debate iyo doodo ayuu ku heesana laakiin waanu kacaynayna ciidagado kaca faysa ala waarago la dhacay la dhacay ma hadana ama ba dhacay kaca wala naga shubtay maasha lagu ma shubay dadku wuxuu ku tuuraa ka soo saar ya ana qoriga qaata ya ma qaadanayo buubay qoriga qaata muxuu ka helay aka garka loolanay
halkan xamar soo nacday carabi soo nacday naam marka waxa ay dadka lama kaxiyo dadka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ده واحد ديني تحنيات بنديني. السؤال ما قد إذا. موضوع عريض كنت لقى صباح اليوم. المدن واحد شاكتين برشلونة السلوك قبضه قيام كم من الحوينه. ها. السلوك قام حكم معناه يعني مدحوينه وان كثير قادين absolute حال أظن السلوك قام معناه كثير والسلوك وين بقى صار شركة كروي فرمات أو كبحي سجن النتيجة لا وسجن بحي اسمه حكم معناه والصومالي لا صومالي واحد يرمي شرطان كل شيء فرماش ده انت يريد لك كبكبي ده حسن شيخ يا كبكباني شريفك وحي وحكي ساعدنا 1998 وكعي قبيلك بسوي بوقي محمد سيارون من الصبح يسوي ما حكواي يسوي ما حكواي محمد سيارون يقول أنت نيجيريا يسوي ما عنده يقول بوفر يقول ما عنده لكن يا سلوك حوالي موسى ولا سلوك شيء موسى يدلك على الصحراء موسى إيه على كرسالة قرية السومالية موسى أبوه سلوك سنة لكن يعني كان بعيده هذيك هذاك عندك الرصاص يجلو عندك كعنه ولا نقاش شغلك سوقع دراويش لو دبل دقيقة ما حد عارف شنو دبل دقيقة استيتو يوم دبل دقيقة بقول 1930 كي حرام عنا مركا إلى 1930 كي 2/3 of Somaliland باباي أودنتي حوالها يمكن بدنا عرفنا بريك هذا تروح مركب سيدكم فريسة بعد بشيء إنجليزي أنت هاي سو حياة اللي نقول سعودي توتال لو تاجي تشيك لكن ما ديدنا إنه هي Somali nationalist هم ديدنا لكن أنا ما هو كمبير قالوا لها كعاي درويشة والله يا ودي البحيي مع سيدك ليش أصحابها رقيها الدوم كل صحري كبيس درويشة هي رواس كقاطعة ولا درويش بعضها هيا نجح inkastoo golaha guurtiga ku joogtadii ay hadasho sheegeen in sharci darrada qaabka loo maray xarika xildhibaanka qoon adoo qaabka loo maray ma sharci darro kula eegam sharci saan ku sheegay iyagoo sharci darro ku soo jawaabay ku guurtiga la yiraahdo joogtadu si loo qabtay waxaad sharci darro waxaadina marka la qabtayba la weydiiso ogolaansho golaha wakiil haduu golaha wakiil xinayna golaha joogtada dambigaas madaxweynaha ayaa galiyay waa ka booliiska haysay dadka xiraalinta labadaas nin baad kala talinaya sida u dhacay arintu marka kiisku halkiisa loogu tagaa madaxweynaha marka ka soco waa in booliisku uu sheegaa sharciga xiraalinka uu eega wayna asaasa loo habanay markii qabteen in ogola u yeelan gudida joogtada oo ilaha arintaas aanu qabanna in looga dhacana ma ahayn muku taraawix soo tukaday inta la dhaxal laga qabtay in caruurta la sasiya ma ahayn ما بتروح سوت كده سوى شبكي سوت إلهي سوى قبل إلهي بقولي إنه مركع يعني بس هذا وكسر بحياة لكن عروض الصص الجلية ما هي لكن واحد دم بيجي سوى جلا كوي هذا هالقف بعد شيء إنسان أو ده كول دم جلا بعد تطلع جلا كوها تجيبه فقولي جاي مسقف أقول أنت بركة عنك قولي أنا لو قولي من متشو